kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media waa habeenimo Khamiis ah 22 bisha Janaayo sanada 2020 qodobada caawa barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shirkadda Spotify oo soo saartay muusig cusub oo lagu ciyaarsiiyo xayawaanada dabjooga ah hadaba waa noocee muusigaasi barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadduu eebweyna yiraahdo sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena bandhiga mudiirka nin aaskiisa lagu gudi jiray oo la ogaaday in uu nool yahay wadakee ka dhacday sheekadaasi caawa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan faalo inooga reeb waa tahay daawadayaal markaana barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa qodobka ugu horeeya ayaan soo qabanayaa waxa uuna noqon doonaa shirkadda Spotify ayaa soo saartay muusig cusub oo lagu ciyaarsiiyo xayawaanada dabjooga ah shirkadda Spotify oo ah shirkad laga leeyahay dalka Sweden xarunteeda ugu weyn ay ku taalo caasimada wadankaasi ee Stockholm kana diiwaan gashan magaalada Luxembourg oo na samaysa muusiko iyo muuqaalo lagu madadaaliyo xayawaanada dabjooga ah ayaa sanadkan 2020 soo saartay muusik lagu ciyaarsiiyo eeyaha kolka ay la joogin dadkii iska lahaa ama ay cidloodaan muusikadan ayaa ah mid soconaysa ilaa iyo 5 saacadood waxaana la aaminsan yahay inuu eyga ku raaxaysanayo waxaana muusikadan taageeray hay'adda u dooda xuquuqda xayawaanada ee adduunka waxaana xusid mudan inay hay'adan ka aamustay geela kumanaanka ah ee lagu leynaya dalka Australia taasina waxay muujinaysaa sida dunida ku horumartay tiknoolajiyada ay isugu mashquulinayso dhowridda xuquuqda qaar ka mid ah xayawaanada dabjooga ah iyada oo dunida meelo ka mid ahna ay macluul darteed ugu la'anayaan noolaha uu alle uumay kan ugu karaamada badan mana ahan markii ugu horeysay oo ay shirkadda Spotify ay soo bandhigto muusikooyin caynkan ah weli waxaad daawanaysaan barnaamijka bandhiga mudiirka channelka Xareed Media waad ka daawanaysaan markana qodobka xiga ayaynu soo qaban doonaa waa tahay daawadayaal markana qodobkeena xiga ayaynu eegaynaa ka oo ah nin aaskiisa lagu gudi jiray ayaa la ogaaday in uu nool yahay waa nin dhanya aaskiisa la diyaariyay in la aasay la rabay waxaa la ogaaday in uu nool yahay bal aan u gudagalno warbixinteena nin lagu magacaabo Stephen Kibuti kuna nool deegaanka Embu ee dalka Kenya waalidkiisa iyo eheladiisana ay ka shaqaynayeen aaskiisa iyo tacsidiisa ayaa la ogaaday in uu nool yahay waalidka dhalay Kibuti ayaa u sheegay warbaahinta in wiilkooda uu xanuunsaday maalmo ka hor kadib markii uu naqaska ku dhagay kadibna aabaha dhalay bukaanka oo lagu magacaabo James iyo hooyadii ayaa ula cararay xarun caafimaad oo ku taala deegaanka Kiritiri halkaas oo dhaqaatiirtu ay kula tacaaleen xaaladiisa caafimaad waxaa markii dambe loo gudbiyay isbitaal kale oo wax looga qaban karo xaaladiisa caafimaad waxaana la geeyay isbitaalka guud ee Embu halkaas oo la seexiyay qaybta bukaanjiifka ee isbitaalka waalidka dhalay bukaanka ayaa habeenkii isaga soo hoyday gurigooda balse war naxdin ah la kulmay subaxii markii ay soo laabteen aabaha dhalay wiilka bukay oo lagu magacaabo James ayaa markii uu gaaray sariirtii uu jiifay wiilkiisa waxa uu u tagay iyadoo wiilkiisa uusan jiifin waxaan ka raadiyay dhammaan qolalka isbitaalka
balse iima suuragelin in aan helo. Qof ka mid ah bukaanadii agjiifa wiilkayga ayaa ii sheegay in wiilkayga lagu qaaday sariir, waxaana aaminay in uu dhintay oo loo sii qaaday qolka lagu kaydiyo meydka. Waan naxay oo istaaga ayaa ka dhacay, ayuu yidhi James oo ah aabbaha dhalay bukaanka. James markii sidaa uu sheegay isbitaalka uu ka waayay wiilkiisa, waxa uu aaminay in wiilkiisa uu dhintay. Markii aan soo naaxay waxaan raacay bas si aan ugu laabto tuuladii aan ka imid oo aan dadkii ugu wargeliyo dhimashada wiilkayga. Waxaana qoyska, ehelka iyo dadka deriska ahba u sheegay in wiilkayga uu dhintay. Way ka naxeen dhimashada, waxayna sameeyeen guddi ka shaqeeya aaska, halkaas oo ay hawl badan ka bilaabatay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay James. Qoyska ayaa markii ay diyaar garoobeen waxa ay ururiyeen lacag dhan $500, lacagtaasi oo loogu talagalay aaska. Qaar ka mid ah ehelada oo uu ku jiro aabihii dhalay wiilka ayaa dib ugu soo laabtay isbitaalka si ay u bixiyaan kharashka isbitaalka. Waxay tageen qaybta qarash bixinta ee isbitaalka, waxayna u sheegeen in wiilkooda uu dhintay, ayna rabaan in ay ogaadaan inta lacag ee lagu leeyahay. Gabadhii joogtay xafiiska lacag qaadista ee isbitaalka ayaa qaybta lagu kaydiyo xogta dadka ku dhinta isbitaalka ka raadisay galka ama faylka uu ku qornaa magaca wiilkooda, balse nasiib darro waa ay weyday. Qofkii joogay xafiiska lacagta waxa uu la tashi ugu tegay dhaqaatiirtii kale ee isbitaalka joogay, balse markii uu inagu soo laabtay waxa uu inoo sheegay in bukaanku uu nool yahay oo uusan dhimanin. Waxaana la inoo sheegay qolka uu ku jiro, ayuu yidhi James oo ah aabbaha dhalay wiilka. Markii James oo ah aabbaha dhalay wiilka iyo qoyska ay tageen qolka uu ku jiro wiilkooda, waxay arkeen wiilkooda oo ay dul taagan yihiin dhaqaatiir, xaaladiisana lala tacaalayo. Aabbaha dhalay wiilka ayaa sheegay in uu aad u farxay oo uu ilmeeyay kadib markii uu arkay xaaladda wiilkiisa oo ka sooreynaysa. Agaasimaha isbitaalka Embu, Dr. Daniel, oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee Kenya, ayaa sheegay in odayga dhalay wiilka aanu wax caddayn ah oo ku aadan dhimashada wiilkiisa aanu ka helin maamulka isbitaalka, sidaas darteedna uu iska mala awaalay dhimashada. Bukaanka wuxuu jiifay isla sariirtii uu aabbihii ku ogaa, balse busto ayuu korka iska saaray oo waa uu arki waayay. Qaladka kale ee uu sameeyey aabbaha waxay ahayd in uusan maamulka isbitaalka iyo kalkaaliyaashaba isbitaalka aanu weydiinin halka uu ku sugan yahay wiilkiisa, ayuu yidhi Dr. Daniel. Wuxuu intaa raaciyay in bukaanka laga daweeyay saameyn ay ku reebtay khamri uu cabay, xaaladiisuna haatan ay wanaagsan tahay. Guddigii loo xil saaray qabanqaabada aaskii Stephen Kibuti oo ah bukaanka loo maleeyay in uu dhintay ayaa sheegay in lacag dhan $100 ay isticmaaleen oo ay ku soo iibiyeen waxyaabaha looga baahnaa aaska. Waa tahay daawadayaal, qeybaha dambe ee barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay. Goordhowna barnaamijkeena waynu soo afmeeri doonaa. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. Intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.